سلام دمانتين ساكا waxaan soo galiyay video saad u taqaanaan maamadan la yiraahdo maam milyuun yani iyada la baxday maam milyuun oo caan ay ku tahay maam milyuun magacaas marraba waxaan rabaa dadka inaan waxyaabo u iftiimiyo waxaan rabaa waxyaabo badan oo mugdi ka saaran dadka inaan u iftiimiyo sheekadu ma aha dumar is haysaysta sheekadu ma aha Naciimo Ducaale ama dumar ayaa is haysaysta sheekadu intaas way ka weyn tahay sheekadu ma aha dad baa wax iska sheegay ma aha sheekadu intaas ma aha sheekadu waa amniga qofkii naftiisii oo halis ku jirto anaga reer Minnesota hadaan deg aan nahay waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga sheego ummad dad badan waxa laga yaabaa in sheekada ku baraarugsanayn oo idan ogeyn oo moodaya in ma aragtay maamada dad dumar oo is caacaayo oo is heesaysta oo ma aragtay waxyaabo raqiis oo kitrukita ma aha wadankan aan joogno walaalayaal waxaan ku loonahay anaga gobolka Minnesota ee magaaladan Minneapolis saad u ogtihiin ciyaalo badan oo Soomaali ah ayaa iskood 2008kii ma aragtay la dabtay oo cid dirtay malaha wiil ilmaha sirarka ah iyaga ma aragtay maskaxda laga xaday sidii ay ku aadeen Soomaaliya markaas ayaa dad intay kaceen waxay bilaabeen in ay tagaan White House ka tagaan ay u tagaan congressman ka ay u tagaan ay yiraahdaan masaajidadaas noocaas masaajid hebel iyo masaajid hebel oo waliba masaajidkeena noogu weyn oo magaaladeena Abubakar Sadiq ayaa ilmaha laga diraa markii ayaa toosh lagu furay intaas oo sano close the door habs intaasoo sano ayaa lagu waday xataa marka istiraahada masaajidka gal waxaa la hor fadhiyaa FBI hor fadhido masaajidka la hor fadhiyaa kamarado yani baaritaan wadaadadiya lagu ifiyay xataa wadaadka noogu weyn oo magaaladan jooga xataa baasaboorka in laga qaatay blacklistiga la geliyay dadka marka waxaan rabaa inaan fahansiiyo walaalayaalow sheekadan waa sheeko amniga qofka naftiyan ahaantiisa ay hebelaa wax laga sheegay iyo hebelaa wax tiri iyo intaasoo nin iyo kan iyo sheekadu ma taagna walaalayaal sheekadu meeshaas sheekadu waxay taagan tahay qofka amnigiisa taagan tahay marka maxaa lagu haystaa milyuun oo maxkamadda lagu saaray milyuun waxaa maxkamadda lagu saaray oo lagu haystaa dad maadaama anagii tooshna lagu haayo oo Somali community aad loo ilaalinayo maadaama 18kaas wiil sanadkii ugu dambeeyay hadda laba wiil ah la xiray gabdho iyo wiilal badan xataa waa xiran yihiin qaar iyagoo sii socda ma aha in dadkii iyagiyo ma aragtay Soomaalidii ka qababa muxuu ahaa suspect ka qaba oo hadii qofka farta loogu fiiqo daasid qofkaas waxa la gelinayaa the blacklist waxa la gelinayaa sheekada waxaan rabaa Soomaalida walaalaha inaan fahansiiyo maxaa la iska rabaa Soomaalida inta sheekadu walaalayaal ma aha dad is haysaysto is caayayo oo ana I don't care waxaas ma aha laakiin sheekadu waana idin shidaaya videoyada wax yar isuga marka sheekadu ma aha walaalayaal ma aha waxba laga sheegay iyo waxba la iska sheegay iyo hebela wax laga sheegay sheeko dumar sheekadu ma taagna sheekadu waxay taagan tahay in milyuun ay rabto in communitygeena wadaadada especially in badan waad maqasheen wadaadkeena Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ee Abubakar Sadiq jooga Sheekh Abubakar Sadiq dhibaato badan ayaa soo martay alxamdulillah markii dambe yani sidii loo baaray waa laga baasaboorkiis waa loo soo celiyay marka waa dad iyagii already wadankeena Soomaali hadaan nahay groupka indhaha duubta oo al-shabaabka la dhaho waa kan ilaa hadda ay joogaan markii qofkii Soomaaliga lagu tilmaamo al-shabaab anteena kacaysa ma garatay marka way ogtahay milyuun leenkan hadda ay bilaawday inay tiraahdo dadkii waa al-shabaab
muxuu ahaa dadkii in airboodadii ay lagu qabto in airboodadii dadkii lagu qabto marka waxbayay idmaa weelinin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dhibaatada ee community-gan aan deganahay waxaanay waxbaa tiri iyo hooyada wax tiri iyo ilmaha sheekadu intaas way ka weyn tahay meeshaan waxa yaala amnigii qofka yacni waa idin shidaaya dadka ay maxkamadaha la taagan tahay hebel iyo hebel iscaayo uma taagna waxay ula taagan tahay in ay ku tilmaantay argagixiso waa al-shabaabka indhaha duubta al-shabaabka indhaha duubta inay ku tilmaantay anagii already fartana lagu fiiqaayo oo ma aragtay ilmo badan oo Soomaali ah ay sidii ku tageen tooshaana lagu ifiyay oo toosh ma aragtay aan ugu ifsan dadkii arrimaha ka dambeeyay oo Sheekh Abubakar Sadiiq dhibaatada waagaas galiyay meeshay ku dambeeyeen reer Minnesota hala weydiyo qaara gabdho badan oo waxa asaas ahaaya jiray oo maasha Allah iska shaqeysan jiray magaaladooda ku jiray markay arrimahaas iyo masaajidadii galeen guriyaha dadka waalwaalidii hadda ku xirxidhan joogaan marka qofkii ummadda ku mashquula muxuu ahaa isagana ilaaha ku maqan laakiinse wadankan la joogo sharci uu leeyahay qofna ma rabo in la dhibaateeyo qofna ma rabo in markuu airportka tago airportka marka anaga aadno hadda aan ahaan xataa marka aan tago dumar ahaan gabdhaha kale markay meesha galaa inaan fahansiiyaan rabaa dadka reer Minnesota maamada cidna salaanka ma qaad waa la yaqaanaa laakiin dadka qurbaha iyo dadka Yurub iyo jooga oo u maleynaayo in la dulminayo ma aha in la dulminayo iyadii waa the other way around iyadii aad dadki dulminayso haba iska dunta caay iyo ma ahayn sheekadii waxay taagan tahay inaan al-shabaab ay dadkii ku tilmaamayso indhihiina macalinidii ah waana kana fiidiyoyadeeda afkeeda aad ku maqlaysaan dadka ay maxkamadaha u saaran tahay dhageysta yaa gardaran yaa dadka ay maxkamadaha la taagan tahay hadda ka hor baan sheegay naagtaas inay al-shabaab tahay al-shabaab tahay waxa ay walaaqaysana waxyaalaha ay faragelisay haddii wax yaroo saxara gaaraan ayadaa u koolbatuu ah gabdhaha yaryarkaa iswata ya ee ay u dhacday ya waxay ugu dhacday ayadaa taqaanee aad u dhacday hadday saxar gaaro adaa ka mas-uula saxar hadduu gaaro hadda dowladda Ameerikana waa kuu ballanaya saxar hadduu gaaro adaa ka mas-uula aamina waa al-shabaab aamina waa jaamac siyaad aamina Minneapolis bay degan tahay aamina caruuraha magaalada yaryarka ah oo dhan gurigeeday ku shirisaa wiilashana gurigeeday ku shirisaa gabdhahana gurigeeday ku shirisaa gurigaygana wax badan uma jirto هاتري مقلة سندقينا كم مقشين قبل بسوا قاعدتي وهويو دور يتوبن عيالها هي ستة شقي ستة مقعد أنت سوا قاعدي بيوحي الله هاي والشباب مركا هي إذا كجدي جن دمر إس هي سستي شيء كذا معها شيء كذا عن وحوي قبله مركا يراهذين وحن نجد جوشي أو وحن أسميني سدا وحي ترهدار ربطان فيديوهات إن اللي كسروا وإن الله بكون على أساسان ماشي وحنا نقطة إسبارة إنك فيسبوك إن إسبارة دقته هذا نك وحنا كلو ربعنا إذين شاقو ما مليون شقوين كي إنكار بك قد عضي شقوين كي ولا قصة فايري نقال حمو أياه هيسي ها نقال حمو كل عضي مرك وحنا ربعنا كده دعسيو إني لينين ما أركت إذين كدبكي ما دريمي كرتان لكن أنا جي ماشي نشوقنا ضدك مجالة نشوقة منولا ضدك وحنا كلها هاي ورودن كان هدي تاش لوجو إفيه ضد إسلام هرت النمبر 1 هرت ضد مسلمان دي أنا لوجو برصنايا وأكتين عالم كإسلام كوحك السعودة وأكتين ما أنت قف ما هو الشباب هدي القصص لود استاجايا جورجاج هالمرة بندول قلنايا وحيتر إن آمنة علي جورجاج أنا واقعنا كمرد بان له استاجايا maxaan u bandhigayaa dawladda Mareykanka u bandhiga wayna sameysay exactly maamadii intay u tagtay markay videoga aragtay videogan maxay iga soo gelisay waxay tiri waa inaad 2 kun keentaa dib dambe kaaga ma hadlaayo marka
weligeed ma aha waa wal arkaysaan suga marka waxay laakiin waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyeed beenta aan ka hadlay MMS waa you it's me it is me okay so adowga MMS baa idiin bilaabaya MMS adowgeeda waxay rabaan dhaqankii hore oo soo jireenka ahaa inay MMS ku dhaqanto cadowga MMS ama cadowgayga so wuxuu rabaa waxaan aan ka hadlayo inuu weligiis jiro oo aan laga hadlinin cadowgayga wuxuu rabaa qaladkii asagu uu galay inuu u dagaalamo sida u siisa ما waxba idinkuma caajisinaay laakiin video it goes on and on inay qof kasta ku tilmaanto al-shabaab Amina Ali waa al-shabaab Naimad Ducaale waa al-shabaab Siyaad waa al-shabaab islaanta aabeed ka dhintay waa al-shabaab wiilashii la dhashay waa al-shabaab hadda erboodadii xataa in ciyaalkii ay magacyadooda meesha ka sheegtay lagu qabto oo lagu sameeyo ma aragtino gabadha hadda ka hor hay'ad degan ninkeeda inta isqabteen ku tir waa al-shabaab ilaa hadda wadanka xataa kama bixi karo sidii loogu dhagan yahay marka it's very serious allegation waa wax serious wax la iska dhahdhaha oo yaani Soomaalidu waxaan dhaqan u leenahay iska daa waxaan iska wixii haday naftaada ay halis gelinayaan oo xataa aad jeel ku mudanaysid ma number 1 dad madow baan nahay number 2 islaam aan nahay wadankii qariib aan ku nahay toosh ayaa already nagu ifsan ma garatay marka marka haday dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu way waalan tahay laakiin se maanta ninkii xaakinka ahaa ninkii ay u doodayay ugu muu doodeen inay waalan tahay waa la baaray waxa la yiri she's fit ma garatay marka qof waalan ma aha ha ka dhigin inay waalan tahay she's all driven waxaan waxay u sameynayso lacag ay u sameynaysaa waa baad isbaaro Facebook ee dhigatay waa isbaaro ee dhigatay meesha dhigatay marka yaa loo maleynin in ma aragta iyada la target gareynaayo oo ma arkino ma aha iyada cidna ma target gareynayso cidna ma aragta ma daba socoto cidna wax kama rabto iyadii ayaa ummadii ku tilmaamaysa inay yihiin argagixiso terrorist group ayuu qofkan kamid yahay hadaa tiraahdo reer Minnesota ama reer Mareykan Google gareeya what does that mean maxay taas maxay tahay wax weyn waa uu qofka xataa naft reerkiisa maxkamad dhibaato badan waxaasna waxay u sameynayso waxaas waxay u sameynaysana waxa weeye muxuu ahaa say lacag uga hesho ayay waxaas u sameynaysaa marka dadkiina dadka reer Mareykan way ogyiin waxay tahay laakiin waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliya dadka Afrikaas jooga dadka Asia dadkan ama Yurub jooga u maleynaayo ma aragti xuquuqda dumarkan u dooda wadaadadii shaqo umulka ma amaan helaayo wada qof ka amaan helaayo male yaani ummadii way ku wada dhigan tahay waa organization waa group ma aragtay saa hadda idin sheegay in diinta wax laga sheego in diinta la duqeeyo in ma aragtay xijaabka wax laga sheego in she's always waxay target gareysaa diintay target gareysaa ma garatay marka ma aha muxuu ahaa isbaaro waa isbaaro Facebook hadda aragtaan waxay ku wada jiraan dalad ay ku wada jiraan waa group badan oo isbahaystay ma garatay sida baada dadka looga qaado sida ma arkin qofka looga nixiyo sida gabdhaha markay isla markiiba ay tiraado naaya lacag keen ay leedahay hadii kale Facebook aan ku soo dhigaya markaas ay gabdhii ordaya ma shaqaysto maliyun ma shaqayso hadda wadankan aad dadka jooga Minnesota sumcadku ma laha ma shaqayso qof salaanka qaada xataa ma laha guriga maanta waxay joogtay maxkamadii ilma ay dhashay xataa ma soo raacin qof soo raacay ma laha she's all alone marka dadkiinaan u sacabtumaya oo u maleynaya in maamo lagu dhagan yahay ama la daba haysto no you guys are wrong cid daba socoto male laakiin iyadii ayaa amaan laga waayay dadka caayayso dib xataa ma laha wax weyn ma aha
qofka haduu ma aragta xataa ku caayo laakiin waxeeda waa waxa anaga dadka ay ku haysato waa terrorist in ay yihiin dadka indhaha xirto lacag ay diraan ay dadkaas ma arkin u shaqeeyaan marka saas ula socda saas ula socda مليون ساعة وقتي صدق عيالي leedahay wiil kamid ah 15 goor aan la xiray waa 33 jir jeelku ku jira ciyaalkeedii fara ugu ma jiraan yaani qofka sidaas ah oo hadda u soo jeestay mujtamaci contract ku soo qaatay diiniyan yaani dadkaas waa in waxa xun la qabtaa waxa ma aragtay intayna ku soo waa in la qabtaa mar hore hadii maamada la qaban lahaa waagii hore qof iska masaakiin oo arrimaheeda ka hadashay ahayd oo ma aragtay iska vulnerable ah yes qof kasta uu iska may daaqili jirin wadaadada iyo diinta iyo dadka iyo personal ma arkin oo noloshaas may gali jirin iyadoo ba iska hadli jirtay and that was fine anigu waxas dib uma arko ma garatay qofka naftiisa ka hadlo laakiinse markii dambe sheeko waxay dhexda laga qabsaday maamada dad baa dhexda ka qabsaday oo Facebook ka qabsaday oo wallahi billahi I feel sorry for her aad ayaa uga naxaa because way use gareynayaan ma garatay maanta waxay tiri maxkamadda nicmadu caalam maxaan ka soo doonay is pertaining to waxa dadkan ay ku haysatid anigana waa igu tiri dadkan aniga iyaga adaa isu kaaya keenay dadka meesha joogay maba is aqoonin xataa laakiin maxaa isugu nimi milyuunan meesha noo wada keentay because isku wax bay na leedahay qof kasta wuxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim ma arkin ma maqlin wal bismillaah maxay iga rabtaa dadka dhan waa yaabin maxay iga rabtaa marka meeshan baada ka socoto meeshan waxaa la rabaa in ay dadka ay baado haddana waxa kale idin sheegayaa Minnesota caanay ka tahay sixirka aad ay ugu dheeraysaa milyuun sixirka aad mana iga ah wallahi laakiin waxaan rabaa in dadka aan ka waaniyo qofka haduu sixirka yaqaano please fadlan iska ilaaliya أنا حبيبي ما قاعد كرتق إسحجاب لكن سجبنا بدنا حتى أنت يسوي عن يرهدين أنا جربين حتى إن نداونه وحأرجنا أنا وقصي عرضنا أنت هذا في سنين أتكارت أخرسه وحبات دت كأيكسو جيدته سحر كأد أي أتقانا مرة البويدين صار قشام ماشان يدو توكسنا يسلعق ولا يسلعق هالإسيو ضبا ما أركتي لكن all that وحكي ترملها اليون علماء عامو iyadii ayaa meel laga istaago la'yahay culummo iyo caamo iyadii ayaa meel laga istaago la'yahay oo dadkii ku tilmaamayso wadanka aniga aan joogno waxaan rabnaa in aan u joogno amni u joogno in aan u joogno aan ku joogno nabad aan ku joognaa rabnaa ma rabno in ma aragtay booliis iyo maxkamad iyo hiririg aan ku joogno ma rabno milyuun saa ogtihiin ma garanayo ma shaqaysato guri dawladeeda iska dhex fadhidaa shaqadeedu waa in ay marba qof ay soo qabato oo tiraahdo hebelow lacag isi ama ma aragtay hadii aad baad ay ka raadiso haduu siin waayo lacagta qofkaas ay meeshan soo dhigto sheekadaasna kaligeed kuma jirto waa saa idin sheegay waa meel Facebook dad dalaayad ah waa dad badan waa dhowr qof oo badan aan islaantan galiyay meesha markii hore sheekadan kuma jirin nafteeda ka hadli jirtay ma aragtay waxyaabo caadi dadka iska wacyi gelin jirtay laakiin bilooyinkii ugu dambeeyay waxay bilowday inay waxaan samayso dad badan hadda ma soo geliso maxkamadda maalin kasta iyada la geenaya mar walba iyada la sii jiidaa maxkamadda la geenaya marka ha may walaalayaal ceeb way dhaaftay sheekadan ceeb waxay taagan tahay airportkii markii la aado in qofkii xataa uu wadankii ka bixi karin uu socon karin oo ma arkino black listiga la geliyo waa in anaga wadankan anaga joogna anaga idinkaga warroon wixii ma aragtay qofka markuu meesha joogo situationka joogo sharciga meesha iyo isaga kaaga warroon waxa laga inaa meel kale joogtaan oo sheekadii ma arkin wixii la xeerinayo hadii xataa adiga iska daysid iyagii aan ku deyneynin dadkii dawladda oo magacaaga inta la qaaday meesha la geliyay ayaan ku deyneynin toosh ayaa lagu ifinaya wayn ku ballan qaaday in ay dad badan dawladda u dhiibto aimkeeda waxa waaye markii isbaaradaas ay meesha dhigatay oo lacagta la siin waayay inay dadka qaado ay jeelashooda geyso ma aha qof ay wax u qabanaysa male cidna kuma haysato inay u doodo dumarka iyo ciyaalka inay dadka masaakiinta ah ay u doodo cidna ma dhahayso laakiinse
90% waa aragteen dad unbay wax ka sheegaysaa dad unbay ma aragtay dulminaysaa namiimnimo wax unbay maanta oo dhan kala wadaa ma garat aniga maanta oo dhan iga sheegtay ma kala jecli laakiin the only thing I cares about halka wax oo aniga aan ka soo qaadanayo waa qaybtaas ay dhehayso argagixisa waxa kale waa sheeko dumar waaye ma garat waxa kale ma raba inaan waqti ku dhumiyo hebla santri iyo hebla sad waxa sheeko dumar waaye laakiin waxaan rabaa inaan ka soo qaato the main point weyn oo ma aragtay culays kale oo wadankan culays ku leh waxa weeye qofkan waa argagixiso shayga argagixisa hadda waa aragtay the war in terror gruubyo dhanaaba ay leeyihiin marka hadda maalin dhaweyd way baxday ramadaan samarkii waxay aaday gabar oo Soomaali ahayd oo diinta ka baxday oo halkaas joogto marka waa iska programyo loo soo dhiibay inay ma arkin oo diinta wax ka sheegto inay xijaabka wax ka sheegto inay ma aragtay diintii dadkii nacsiiso ay ka dhigto ma aragtay dad mar walba waxay tiraa Soomaalida been baa taqaanaan fraud baa taqaanaa hadii runta la sheego Mareykanka aan joogno dadka madowga ah markay wax dhacayaan si ma aragtay waxa laga yaabaa inuu meel jabsado oo wax yar ka soo qaato ama $1 ama wax yani physical u sameeyo laakiin dadkan halkan jooga ee cadaanka ah waxa la dhahaa white collar crime qalinkaasay wax ku qaataan qalinkaas tuuganimada ugu badan wadankan waxa ka sameeyo cadaanka waay ma cadaanka waay tuuganimada ugu badan waxa sameeya milyuun waxyaabo badan ay fahansaneen waxay u maleysaa ma aragtay Soomaalidu waa tuugooyin Soomaalidu dadkay dhacaan Soomaalidu waa been miiran Soomaalidu waa saan waaga Soomaali joogni waxaan la dhihi jiray oo maqmaqli jiray alla gaalada been u sheegaan alla gaalada xan ma yaqaanaan wallahi billahi meesha aan ka shaqay intuu xataa qofka sii socdo indhahaas ay qofka ka xamanayaan qof dadka xan badan ma jiro tuuganimo markay noqotona qalinka iyagu wax ku xadaan waxa arkaysaa hadda nimankan waaweyn in hadda maalin yahuudo la xiraayay maxaa la dhahaa magaciisa iisoo sheegay magaciisa 2002 sano ka hor ma ahayd dadku wuxuu ku yiraahdaa lacag ii keena aan waxa idin gelinayaa investment lacagtiina ayaan idin ku shaqeynayaa lacag kale idin dhalaysaa dadka cadaanka ah lacagaha ay xadaan millions waay qofka madooga wadankan joogan waxa lagu xiraayo uu xadaayo waa wax ma aragtay aan weyneyn marka milyuun inay fahanto waaye dadka tuugada ugu badan waa dadka qalinka white collar crime ah dhaha qalinkaasay violent ma qalinkaas dhag lacagta iyaga isku qorayaan bangi lacagta iyaga isku check iyaga isku qorayaan saasay wax ku xadaan wax ka been badanna ma jiro there is no one oo ka been badan cadaanka malaha waa ku qoslayaan ismail kaaseti marka baxadid stab you in the back marka wixii xun baxaa waa la dhahay wixii xun ba Soomaaliya loo waxeeyaa marka No, she can be my mom. It's not like mom you has the laga hadlaa waxa laga hadlayaa qof mujtamaci anaga meesha aan joogno dhibaato ku haya ma garat mujtamaci aan joognay milyuun magaalada ay joogto qofna lama hadlo qofna uma tago dad qof kasta caani ka tahay ma garat waa laga wada cararaya waxa laga wada cararaya wax kale ma aha kamaradaas ay wadataa yani qof kasta wuxuu leeyahay ama meeshan ku soo dhigtaa marka dhigitaanka oo cay iyo waxaasna ma aha laakiin waxa dadkii waxay dhaysaa argagixiso dawladda idin dhiibaya kana idin dhiibaya hadda markasta waxay tiraahdaa lawyerka immigration lawyer aan ku qabsanaya lacagta aniga immigration lawyer igu qabsanayso wadanka aniga sharciyan ku jooga 20 years aan deganaa waligay maxkamadna la imageynin I never committed crime dadna wax ma yeelin maxkamadda lacagta aniga igu geynayso milyuun advice aan siinaya wiilkeeda yar oo 23 jirka ah oo jeelka Hennepin County ku xiran oo labada mar feloniga lagu sameeyay ilmaheedu waa ka hadli karaa because ilmahayga way ka hadashay ay tiri argagixisa way ku sheegtay ciyaalkayga marka ilmaha si advice wiilkeedana kuma caynaa laakiin lacagtay aniga igelinayso ama ay maxkamadda maanta ugu yareed waxa laga yaabaa inay inta soo kun ka baxday waxa uga baahan wiilkeeda 23 jirka ah oo 15 goor la xiray haddana xiran oo laba feloni haysta marka kaas hasiiso kaasna ha ku teegeer karayso uma baahna in ay lacagta ma arkin oo lacag free meel iska gelgeliso
sabi ma aha ilmaheeda ka ugu yar waa 19 years wiilka hadda ka hadlayo waa 23 jir wax kale laguma hadlayo lacagta ay dadka gelinayso looyarada gelinayso ilmaheeda uga baahan ma garatay waxa waa adiga iyo dawladii wax ka qaadanaysid oo ma aragtay dhaqaale badan haysanin ba inaad maxkamad 24 hours taagnaatid oo lacag aba u baahan meel kale aad gelisid lacag aad shaqaysatid day ahaan lahayd waa lacag oo dadka Facebook iyo dadka ay u soo diraan ee dadka isbaarada u dhigatay dad badan hadeerta ay haysatay way iskaga hareen markay lacag ku aamusiyeen please na amaana siina dadna waa kuwa hadda maxkamadda u taagan marka sheekada ay idin bedelin ani wax kale kama rabo ma wax kale ani kama rabo personal attack ma aha waxa waaye waxaan waa community problem waa dhibaato communitygeena haysata weey ma aha laba qof ay haysta sheekada ma aha oo waxa laga dadka meesha imaamada haysato waa almost 20 waa ka badan yihiin maantana maxkamaddii waxay ku dhamaatay in muxuu ahaa dib fiidiyoyadii halkaan ee dadkii ku tir argixisay waaye iyo dadkii dhibaatada ka soo gaartay ee riboodada lagu qabsaday oo lagu dhibaateeyay because iyadii ay dadka ka farta ku fiiqday oo blacklistiga la geliyay qofkii Mareykanka joogo Minnesota joogo baa garan kara dhibaatada marka lagu sheego qofka argagixiso iyo dhibaatada ay leedahay qof kale ma garan karo ma garatay halkan waxaan u joognaa inaan ilmo ku korsano inaan iska shaqaysano in aan ma aragtay wadanka sharcigiisa dhowrno ma rabno in labelna lagu dhajiyo oo aan riboodadii tagi weyno anoo hadda waxba la igu label gareynin bahad oo caadi aba iska badaa hadoo ay label gareysayba ayaan markaa meesha tago aniga dhan saas la ii baaraa inta qol gooni ah la geliyo ayaa la ii baaranaa qof kasta intuu maro aniga laakiin maadaama aan qof islaam ah hoganahay meel gooni ah la ii waxeeyaa marka anaaba already anaga dad islaam ah dhibkaas ku jirnaba already oo ma aragtay in toos lagu furo marka insha Allah intaas rabina idin sheego maxkamadda waxay u sii soconaysaa January 8 qofkii rabo iman kara marka waxa weey dadku waxay rabaan in just naftooda amaan loo siiyo dadkii maanta waxay ku doodayeen in amaan ay nasiisan baan rabnaa maamadan waxba kama rabno marka maxkamadaha way badan yihiin kuwa kala soo socda waxa waa sheekadu way badan tahay waxaan meesha u tagayna way qusaysaa because aniga igu tilmaamtay argagixiso wiilkayga argagixiso ku tilmaamtay marka marka insha Allah waa idinka sii tagaya haduu Ilaahay yiraahdo marka milyuun waa iska soo dhamaanaysaa waxa waay wax kasta bilow way leeyihiin wayna dhamaanayaan يعني waxaan nasiib dara amaama intaas la eg in maanta dhan la jiido oo la sii jiido oo la soo jiido oo la sii jiido oo la soo hadana waxa waay she never learns Soomaalidu waxay u leebergaleeyeen inay waalan tahay laakiin ninkii lawyer-ka ahaa kuma doodayo inay waalan tahay maanta wallahi kaligeeda ahayd cunuga ee dhashay xataa ma soo raacin laba ilmood saddex ay dhashay wiil jeelku ku jiraa for the last 6 months jeelku ku jiraa marka milyuun waxay u baahan tahay advice in la siiyo please waqtiga aad meeshaan gelinaysid iyo ilmahaaga geli wiilkaaga yarka ah rehab he have drinking problem rehab geyso take care garayso ma garatay gabadheeda nin aa guursaday laba bilood markuu qabay way ka furtay wiilkii yaraa oo hadda ugu yaraa 19 jirka ahaa ka carar aabihiisu aaday marka qol cidlo kaligeed iska fadhidaa waxay ku mashquushay inay ummadii ma aragtay ay gaaladii faraha ugu fiiqdo marka waxay u baahan tahay this is lesson to everyone of intu soo galo milyuun kaliya ma qusays sheekadan waxay qusaysaa everyone oo maleynaa inay dadka iska caayi karaan terrorist way dhihi karaan looma baahna qof weyn waaye waxaa la rabay inay dadka hagto maanta ma ahayn maanta tii milyuun inay dadka caayda ma ahayn maanta inay ma aragtay maanta dadku ilmaha ku soo laabata ma ahayn inay ilmihi yar yaraa toosh ku furta ma ahayn marka insha Allah waa idinka tagayaa salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.